marka isbitaalkan wuxuu odoloskaygu ahaa inuu noqdo isbitaalkii kaalinta sare wax ka qaban karna maalin laguma gaaro maalin ku dhamaan maayo ilaahu aan laba dhakhtar ku bilaabaa ilaahu ay afar noqdaan laakiin himilada aan u socdaa magaca haldoor aan u bixiyay waxa weeye in isbitaal ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto halkay dibadda ka aadi lahayd service-ka aan siino oo ka badbaadiyo dhibta safarka dhibta hoteelada dhibta gaadiidka dhibta ajnabiga dhibta reerkooda ay ka dulmaqan yihiin dhibta madaxda dalkooda lagala cararayo ganacsadihii awood u leh in halka lagu daweyn karo dibadda loola cararayo waan hambalyeynaya xafladda tan iyo doctorka iyo dhakhtarka anigoo takhasusaadka cilmiga inay wadankana aad ugu yar yihiin dhulal fog ama meelo aad inooga durugsan loo tagi jiray hanti badan inay ku bixi jirtay hadii la soo dhaweeyo dadkii aqoonta lahaa waa waxtar weyn oo runtii wadanka ku soo biiray waa wax qabad aan oran karo wax qabad qiimo leh marka lagu xisaabtamayo bini aadamka iyo horumarkiisa in la helo takhasusaadka cilmiga ee dadku u baahan yihiin marka kelmadaydu waxaan ku soo koobaya kulay dad badan ba fadhiyo waayeel iyo wax garad ba leh dhakhtarkana Allah inoo barakeeyo Allah ka yeelo meel dadku waxay ka rajaynayeen ay ka helaan doctorkuna juhdigaasi uu bixiyay inkastoo doctorka anigu in badan waxa oran jiray war halkan baa siyaasadda ka fiican baahida iyo kala ka badan ta siyaasadda tan noo xooj maanta waan ku sii xoojinaya waxa leeyahay tan baan uga baahi badanahay ta siyaasiga marka baltaana mala markuu beeshanka gaadho u kiciye tan Allah la qabto ilaahay baa mahadle wixii wanaagsan oo dhan la qabto ama lagu haminayo in isaga loogu mahadnaqo isaga iska leh dadaalkan galnay waxba kamaanu mira dhalineen haddaan isagu noo amrin inaan arintaas aanu noo dirin hawshan aan ku hamiyey inaan wax ka qabto dhibteeda iyo dariiqeeda aadna halka fadhida ayaa laga yaabaa inay soo martay oo hawlaadi aad u dhib badan runtii wax bini aadamku isku dayo dhakhtarku aad iyo aad uga dhib badan yahay mararka qaarkood marka aad u daalo waxaan dhahaa war malaha qolkaaga yaraa oo lagu qaatay in kugu filan oo ka helaysay badda kale ayaa waxay haddaba isbitaalkan maxaa igu dhaliyay waxa igu dhaliyay Soomaaliland way kacday horu kacbay samaysay dhakhaatiir badan baa ka maartay xana qaaday oo waaweyn oo wanaagsan laakiin mar walba bukaano badan oo soo mara oo waxaan arki jiray India Malaysia Ethiopia dunidaas u socdo malaayiin lacagana ay ku baxayso waxay soo gashay dhibta inta tira la eg inta kaliya ma intaas waa inta dhaqaale awoodi karto waxa dalka ummadda Soomaaliyeed oo dhanba jooga malaayiin kuwaas xanuunka ay qabaan oo aan jeebkooda iyo dokumentiga ku safri lahaayeen iyo awood mid aan u hayn marka waxaan isiri malaha hadda waa la gaaray waqtigii isbitaal kaalinta in lagu hamiyo kaalinta inaan wax ka dhino intaan ka qaban karno waa la gaaray waxa kaloo maalin walba indhahaygan ku arki jiray madaxda dawladda mas'uuliyiinta qaran ganacsatada ugu waaweyn mutacalimiinta ugu waaweyn haldoorka madax dhaqameedka oo shil ku dhacayo ama xanuun ku soo boodiyo oo la leeyahay dayuurad hal la doono hal lagu qaado maaragtay dibadda loo taana waxaan is weydiiyay miyaan awood loo lahayn in baahida inta tira leh qof walba la cararayo in la soo yareyn karo oo in dhifa kaliya dibadda loo qaadi karo marka isbitaalkan wuxuu odoloskaygu ahaa inuu noqdo isbitaalkii kaalinta sare wax ka qaban karna maalin laguma gaaro maalin ku dhamaan maayo ilaahu aan laba dhakhtar ku bilaabaa ilaahu ay afar noqdaan laakiin himilada aan u socdaa magaca haldoor aan u bixiyay waxa weeye in isbitaal ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto halkay dibadda ka aadi lahayd service-ka aan siino
uu ka badbaadiyo dhibta safarka, dhibta hoteelada, dhibta gaadiidka, dhibta ajnabiga, dhibta reerkooda ay ka dulmaqan yihiin, dhibta madaxda dalkooda lagala cararayo, ganacsadihii oo awood u leh in halka lagu daweyn karo dibadda loola cararayo. allah ka dhiga baan leeyahay himiladaas mid noo dhamowdo. hadday himiladaas igu bilaabantay, waxaan ogtihiin jeebkayga wax kuma jirin, siyaasaddii sheekh mustafa iga waaninaya baa madax martay, anaaba deyn laygu lahaa marka anaaba deyn laygu lahaa meelaan ka bilaabo horta deynta iska bixi baan sir ilaahay way iga fududay. markaan arkay deynta baaxadda leen iska bixiyey ayaaba horta is aaminay inaan wax dhalin karo. ilaan marka hore lacagteeda maan arki jirinoo ummado kale ay ku bixi jirtay iyo maaragtay kasbasho dad. doctoorka iyo dhakhtarka iyo dhakhaatiirta kale joogta waxaan leeyahay allah idin barakeeyo. caafimaadkuna runtii waxaynu wada ogsoonahay waxyaabaha bini aadamku ugu baahi badan yahay inuu ka mid yahay. weli baan odhan karo bulshada dadka ugu jilicsan bay la dhaqmaan. qofka bini aadamkii markuu caafimaadka waayo waa markuu ugu tamar daran yahay. mahma uu magac kale iyo adduun kale iyo wax kale u haysto, hadduu caafimaad waayo waa min adcafi nnaas, waa bini aadamku markuu ugu kadan yahay. dhakhaatiirtuna inta badan waxay la dhaqmaan markaa dadku markuu ugu liito, ama madaxweyne ha ahaado, ama miskiin ha ahaado, ama taajir ha ahaado, ama sheekh ha ahaado, ama cid kale ha ahaadee. idan nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa qofka qof mu'mina kurbo ka fayda, isna ilaahay kurba min kurbati yowma alqiyaama buu ka fayda. marka ugu horreyn dhakhaatiirta waxaan odhan lahaa ixtasibu, shaqadaad qabanaysaan iyo bini aadamkaa ka shaqaynaysaan ha noqdo waxaa xisaabsataan ilaahay agtiisa marka koowaad oo aa rabbi ugu dhawaataan. taa macnaheed waxa weeyaan in dadka loo jirjilicsanaado oo wax badan loo qabto.